السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنو ونكسن داوديا شيدا قيمها يقدر انت مدن halkani waa telefishinka caalamiga ee ismaamulka Hadrabe laantiisa afka Soomaaliga ku soo dhawaada warkiyo fidsan waxa xalayto ismaamulka Hadrabe guriga boqortooyada ka qabsoomay casho sharaf oo hordhac u ahayd toddobaadka xiisaha Hadrabe waxaana casho sharaftaasi goob joog ka ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ismaamulka Hadrabe oo ugu horeeyay duqa ismaamulka Hadrabe mudane Khadiir Jawhar ku xigeenka duqa ismaamulka Hadrabe ahna madaxa xafiiska ganacsiga warshadaynta iyo maalgashiga mudane Xarbi Buux faafaynta warkaniyo wariye Ayub Ibrahim مناسبة عشر شرفة أو هرعو هيدا حسكا ضدوات كحيسها دردبا مناسبتنا أي كسو قايب قلان ضد اسكو جيره قرب جوج يقرن جوجا أيا واحا ده فريدوكا اسمامو مقالا دردبا مدن خدير جوهر وانا شاقي إن حسكا ضدوات كدردبا لوغا قول لي هاي سيدي كور لوغو قادي لها والارتنمدا اسجعيل كقوميدا احنا بلان قادي إن دادكا عانك اي دردبا وداشي نلوغو مقا دري دونو ودوينكا دوكسيادا كرومدا إيو قوبها كلا عانكا kasoo qaybgalayaasha casho sharafta ayaa inoo sheegay in ay u xiiseen magaalada Dirdhabe ayna rabaan in ay maal gashadaan magacaygu waxa weeye Xuseen Haltiro Xirsi waxaan ka imid wadanka Mareykanka qurbo joog baan ahay u dhalatay dalkan magaalada Dirdhabe kana soo qayb gashay toddobaadka xiisaha Dirdhabe waa maalin taariikh gala oo aad loo soo dhaweeyay oo anaguna ku faraxnay siba maamulka Dirdhabe aad bay معنا وسود ويان عم قاعد مفرن ونكون فرحسنا هاي قرب جوج بدن بان هاي قومي ذاك كردوان كمدا أدبر فرحسنا هاي عاون وحن جوجنا أقل كمدا حتويدا درب وحلو حسيا جعيل كي وناجي يسدح قلك ومقالو قومي ذا بدن يكونوا لين تاريخ بدن صوم مرتي دب بدن جري سي لكن أنت يسبدل كل عاي دي قاعد كي دولتي درجة لقى تخلصي وحاب لا ما يسبدل وين سيبا قوميدها dadkeena afkeena ku hadla Soomaali Oromo dadkaas oo dhan waxay gaareen heer sare wanaag ba ka bilaamay 4 sanana isbedel ka dhacayna annagu wuxuu noo soo jiitay inaan ku soo laabano wadankeygii oo indhuhu ay noo soo jiiteen wanaag iyo nabad aan ka arkayno qurbo joogto waxa looga baahan yahay si ay Dirdhabe u yimaadeen marka hore sina fara gacmo fara lagu soo dhaweeyo oo wadankan ay nabad ay arkaan annaguna kuwa hordhac ayaan ka midnahay si fiican bal noo soo dhaweeyay war fiican ma ka tagin doona kuwa xagaasna aad bay noo sugayaan waan faraxsanahay meel walba dawladdu nagu soo dhaweysay shacabku meel badan baan indhaynayna aad bay wanaagsan tahay hawo fiican horta imanay ciid fiican dadkayga baan la ciidnay dhamaan xagga iskuulada iyo jaamacadaha waan indhaynayna insha Allah waa magaalo wanaagsan oo qurbo joogta ay ku soo qulquli doonto insha Allah anigu waxaan u darayaa Dirdhabe inay meel wanaagsan tahay oo dad jacayl ay isku nool yihiin qowmiyado badan oo nabad ka jirto wanaag ka jiro isbedel weyn oo ka dhacay in qurbo joogtan ay ka soo qayb galaan oo ay qaybtooda ka qaataan ay wanaaga arkaan oo dadkoogana keenaan Dirdhabena ay noqotay Dirdhabadii hore ma ahayna Dirdhabe cusub ay tahay oo ay la tartamayso magaalooyinka adduunka aadna loo soo dhaweeyay iyagana ay ka heli doonaan insha Allah isbedelna ay sameyn doonaan waan baaq u jeedinaya qurbo joogta الرحمن الرحيم مقعيقة وحل يدهدا كوثر محمد سليمان وحن كإيمدي ودنك كندا سبيشال مقالة تورنتو runtii waxa weeyaan xiise aad iyo aad u wanaagsan madaxda Dirdhabe iyo waxa weeyaan baabulayaasha marti sharaf tacaawun loogu ballan qaaday in lagu soo dhaweeyo mid waxa weeyaan runtii mid aanan ilaawi karin meel aan ka nimidnayba waxa weey aad baan loo soo dhaweeyay runtii waxa weeyaan waxana loogu ballan qaaday inaan wadankayaga wax ka qabsan karno aan ummadeedana wax uga qaban karno waxa weeyaan arin aad iyo aad xiiso u leh dadka waxa weeyaan badidooduna ay aad ugu faraxsan yihiin caawa inay isku arkaan nabadgelyada wadanka iyo waxa weeyaan quruxda wadanka iyo farxadda wadanka iyo galgacalada la isku hayo iyo sida la isu soo dhaweynayo annaga oo waliba magacayaga aad loo qaaday la leeyahay waxa iska leh martida maxay ahayd arintan caawa la qabtay ama abaabulkan caawa la qabtay ama programkan caawa la qabtay special waxa gaar ahaan iska leh waxa weeyaan dadka qurbo joogta ah ee wadankooda soo booqday runtii waxaan ku qiyaasi kara ma laha sidaan kugu sheegi karana ma laha waxaad aragtaa dadka caawa farxadda ka muuqata waxaad aragtaa dadka caawa si isku soo dhaweynayaan waxaad aragtaa dadka caawa xiisaha isku qabaan kaas waxa weey waxa ugu muhiimsan wadankaaga markaad kala kulanto wanaag iyo waxa weeyaan nabadgelyo ee aad aragto wadanka siday dadku isku jecel yihiin ay isugu soo dhawaanayaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan wadankayaga intaan ku soo noqono wadankayaga waxaan ka qabsan karnaa ka qabsano wadankayaga waxaan dadkayaga u qaban karnaa iyo waxaan annagu ku qabsan karnaba aan isu soo dhaweyno inta aan ogeyna aan u sheegno
aadna waan ugu faraxsannahay yar iyo weyn kelideedna ma aha dad badan baa jooga marka aad baad ugu mahadsantihiin special dadka waxa way xidhiidhiyayaasha wariyayaasha meel walba jooga dadka ku soo dhaweynaya waxa weeyaan different cayn bay leeyihiin different shaqay haystaan different uncle bay ka yimaadeen annaguna waxaan leenahay thank you so much aad baad u mahadsantihiin actually I have to runtii waxa weeyaan lama soo koobi karo waxa weeyaan bajoogta waxa weeyaan waxay ka timid like different places waxayna ka qaadanaysaa like waxa weeyaan waxa la yiraahdaa how I'm going to explain for you like aad baan loogu faraxsan yahay in wadanka wax laga qabsado oo lagu soo dhawaado even though waxa weeyaan dadka aad like hadii aad wareysato uu qof waliba ku sheegi karo nacam halkay ka taagan tahay fikradiisa iyo wuxuu u dan leeyahay iyo wuxuu rabo inuu wadanka ka qabsado والله waxa weeyaan qurba joogta aad waxa weeyaan in hadii waxa weeyaan baaqan waxa weeyaan ay uga jawaabayaan qurba joogta waxa weeyaan sideedaba waxa weeyaan intii maqashayna waxa weey way ka jawaabtay in badanna waxa weey ku tala jirtaa inay ka jawaabto soo waxa weeyaan qurba joogta waa dad aad loogu baahan yahay oo waxa weeyaan baaqanna aad uga jawaabaysa geesta kale qaar ka mid ah qurba joogta u dhalatay ismaamulkani Diridhabe ee ka soo qayb gashay xuska toddobaadka xiisaha Diridhabe ayaa warshadii hore sibidhka ee loo yaqaanay Shamantariya ka fuliyay barnaamijka dhirbeerista ee loogu magac daray deegaan cagaaran jiilka soo kacaya aynu uga tagno goobtaasi ayaa lagu beeray 3,000 oo geed qaar ka mid ah qurba joogtii ka soo qayb gashay dhirbeeristan ayaynu wareysi ka qaadnay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan maasan marka horeysa waad mahadsantihiin Dire TV waxaan ka imiday dalka Mareykanka magacaygu waa Xuseen Altiro Xirsi dareenkaygu aad buu sareeyaa magaaladan Dirraba ee wadankayga abaan imiday anigoo ka soo jawaabaya baaqi ka yimiday ra'iisul wasaaraha Dr. Abiy Ahmed ka anagoo ka soo jawaabayna baaqiisi waxa in la yimaado qurba joogta ciid ilaa ciid baan ka soo gaadhnay ciid Arafo farxadda Dirraba toddobaadka xiisaana waan ka soo qayb galnay maanta wax weyn baan fulinay kow subaxii hore waxaan ka bilownay Lagaharka Dirraba ilaa Lagahare baan lug ku taagnay kadibna quraac iyo xaflad iyo soo dhaweyn ma la kulanay kadib waxaan imanay halkan Shamantariya oo amba cement fabrica loo yaqaan qaybta warshada sibirka waxaan saarnay ashara amba geed qoyan ayaan ku taagnay magacayga si wadanku geeda cagaar u yeesho kaas baan ka qayb galay program fiican buu ahaa waan ku faraxnay nin walba magaciisa ayuu ku qoranay geedka uu taago oo caleema saar dhigo waad maansantahay waa su'aal wanaagsan weeye oo in la isweydiiyaa qurba joogta Dirraba u dhalatay amba Ethiopia way ku yariyeen qowmiyadaha kala kolka leega laakiin hadda waan badannahay abaabul badanna uu jiraa hordhaci horeey weeye annaka u horeyna marka dambana waan soo diyaarinaynaa kuwa kalena insha Allah way soo socdaan laakiin kama yara ee la xaway waqtiga uun baa dib u dhigay wadankana isbedel weyn baa ka dhacay 32 sano ma ahayn 4 sano u dambeysay isbedel ka dhacay Soomaalidu aad bay ugu faraxsan tahay nabadda iyo wadanka marka way iman doonaan inta dambana annaka war baaq fiican tabinayna amba u sheegayna waxa jira inay nabad wadankii jirto oo Dirraba wanaagsan tahay oo maalgashi iyo wanaagba ka socdo indhaha marqaatiya markan afarinta gudbino waxaan u malaynayaa inay qurba joogta inay iman doonaan dadaal weyn waan gelinaynaa Dirraba waxaan rajaynaynaa inaan u qabano dhinac walba inaan eegno xagga iskuulada iyo xagga dhakhtarada ayaan eegaynaa dadka masaakiinta wax in la caawiyo wixii dib jira waxaan karayno annaguna inaan wadanka u soo gurno maalqabeen aan maal gashano ayaan rabnaa gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey kaantibaha iyo dhammaan maamulka oo dhan wayna soo dhaweeyeen waxbayna tuseen ballanqaad bay sameeyeen annaguna waan garab joogsanaynaa marka Dirraba waa magaalo ay qoomiyado badan ku nool yihiin oo la soo dhaweynayo oo farxad ka muuqato jacayl ka muuqdo sida Lagahare maanta loo ciyaarayay sida cuntada loo cunayay farxad weyn bay ahayd marka maalgashi waan sameyn doonaa insha Allah duulayna Ismaaciil baa la yiraahdaa waxaan ku magac dheerahay Ismaaciil Shibiin anigu waxaan ku dhashay magaalada Diridhabe aabbahay awowgay faamiyi ilaa ka faamiyi oo dhan xakan ay ku wada dhasheen magaaladan ku dhashay oo maanta imiday oo dhirtiina meesha ku beernay aad baan ugu faraxsanahay taa ka sokowna wallaahi inamada Soomaaliyeed ee Diridhabe ku dhashay iyo agagaarkaygaba waxaan jecelahay inay magaalada Diridhabe qayb libaax inay ka qaadan karayaan oo yimaadiin oo arkaan oo dalkoogii hooyo oo aabo ay wixii ay ka qaban karayaan inay qayb libaax ka qaataan weeyaan meeshani waa meeshii ma dheertaynu ay ku wala aasan tahay weeyaan meeshani waa meeshii aabayaasheen iyo waawiyaasheen ku wala aasan yihiin weeyaan meeshani
waa meeshii diri dhabe la yidhaaho oona laga maarmaynin ku maraykan jooga ku yurub jooga ku carabo jooga ku afrikada kale jooga meel alle meeshuu doonaya joogo reer diri dhabooy welcome iskugu wada kaalaya magacaagii axmedna waaba kan faahfaahin siyaadaana axmed baaba mugsoontay programka wixii ka dambeeya dhowrkan cisho dabadeed yaa aan isku arki doonnaa de sidaa iyo waad mahadsantihiin reer diri dhabow baraarugoo soo noqda kaalaya dhulkiina waynu sugayaa magaaladii gacmo furan bay inagu soo dhoweynaysaa ahlan wasahlan weli waxaa ismaamulkani diridhabe ku soo qulqulaysa qurba joogta u dhalatay ismaamulkani diridhabe si ay u xusaan ama uga qayb galaan toddobaadka xiisaha diridhabe faahfaahinta warkan iyo wariye maxamed cabdi gegada diyaaradaha caalamiga ee dirdhabe waxaa si diiran loogu soo dhoweeyey qurba joogta ka soo deganaysa dalka dibaddiisa kuwaasi oo dib ugu soo laabtay dalkooda hooyo ee Itoobiya gaar ahaan ismaamulka dirdhabe qurba joogtan oo bilahanba ku soo qulqulaysay ismaamulka dirdhabe ayay tahay ujeedadoodu sida uga qayb qaadan lahaayeen munaasabadda xuska toddobaadka xiisaha dirdhabe oo la qaban doono bishan gudaheega haddaba waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dirdhabe ku soo dhoweeyey mas'uuliyiin uu horkacayo ku-xigeenka duqa ahna madaxa xafiiska ganacsiga maalgashiga iyo warshadaha ismaamulka dirdhabe mudane xarbi buux komishineerka komishinka booliska ismaamulka dirdhabe mudane alamu magra ciidanka qaranka booliska ciidanka fardoolayda iyo weliba kooxda baambayda isbeddelkii ka xana qaaday dalka kadib waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysa qurba joogta oo si xoogan ugu soo qulqulaysa dalkooda hooyo kuwaasi oo imaanaysa qaarkood dalxiis iyo weliba in ay ka qayb qaataan maalgashiyada kala duwan ee ka jira dalka waxaa magaalada diridhabe ka qabsoomay qiimeynta warbixinta waxqabadkii sanad miisaaniyadka 2014 tirsi taariikheedka Itoobiya ee wasaaradda warshadaha deegaanka dalka faahfaahin warbixintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyeena maxamed cabdi wasaaradda warshadaha ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa soo qaban qaabisay kulan ku saabsan qiimeynta warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadkii 2014 tirsi taariikheedka dalka Itoobiya iyo sidoo kale in laga wada doodo qorshaha 2015 kulankan oo ka qabsoomay ismaamulka dirdhabe ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xafiiska warshadaha iyo maalgashiga iyo sidoo kale xafiisyada hoos yimaada ee deegaanada dalka kuwaasi oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda warshadaha ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Malaku Alabel duqa ismaamulka dirdhabe mudane Khadiir Johar iyo mas'uuliyiin kale waxaana kulankan ugu horeyn khudbad ku furay duqa ismaamulka dirdhabe mudane Khadiir Johar oo sheegay in ay dirdhabe tahay xarun warshadeed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dirdhabe in ay cadayso inay tahay xarun warshadeed waxay sii ballaarinaysaa shaqada warshadaha inay sii ballaaran xarumaha warshadaha waxay kor u qaadaysaa kobaca iyo horumarka dhaqan-dhaqaale dalka warshadaha waaweyn ee laga hirgeliyay ismaamulka dirdhabe waxaa ka mid ah industry mender iyo sabada warshadaha ee ismaamulka dirdhabe industry mender waxaa dhidibada loo taagay 1996 ballaca dhul ee ay ku fadhido ayaa waxay gaadhaysaa 228 hektaar wax soo saarka warshadaha ka howlgala ismaamulka dirdhabe waxaa ka mid ah wax soo saarkooda cunnada sharaabka biyaha xidhan sibirka iyo kuwa kale oo aad u fara badan kuwaasi oo qaarkood laga helo dalka dibaddiisa sanadkan 2014 wax soo saarka warshadaha waxaan ka soo hoynay shaqooyin xarumaha wax soo saarka warshadaha ee ka jira guud ahaan ismaamulka dirdhabe waxay gaadhayaan 370 waxayna iskugu jiraan warshadaha wax soo saarka hoose ayaa waxay gaadhayaan 243 warshadaha wax soo saarka dhexena waxa ay sidoo kale yihiin 88 halka wax soo saarka warshadaha sarena ay gaadhayaan 39 wax soo saarka warshadaha hoose waxaan sanadkan ka soo hoynay 1.8 milyan oo bir lacag kor u dhaafaysa geestiisa wasiirka wasaaradda warshadaha ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Malaku Alabel oo halkaasi khudbad ka soo jeediyay ayaa sheegay diiradda oo la saaro wax soo saarka warshadaha in ay door muhiim ah ka qaadanayso horumarka iyo kobaca dhaqan-dhaqaale ee dalka kulankan oo socon doona muddo 2 maalmood ah kaasoo xafiisyada maalgashiga iyo warshadaha iyo xafiisyada hoos yimaada ee guud ahaan deegaanada dalku ay ka soo jeedin doonaan warbixinta waxqabadkii sanad miisaaniyadka 2014 tirsi taariikheedka dalka Itoobiya waxaana sidoo kale halkaasi abaalmarino iyo shahaado sharaf lagu guddoonsiin doonaa xafiisyadii door muhiim ah ka soo qaatay sanad miisaaniyadkan 2014
weli halkani aad sida tooska nooga dheexanaysaan waa telefishinka caalamiga ee ismaamulka Hadrabe laantiisa afka Soomaaliga haatana warka xiga xafiiska caafimaadka ee ismaamulka Hadrabe ayaa qabtay kulan lagu abaalmarinayay shakhsiyaadka iyo xafiisyada door muhiimka ah ka qaatay hirgelinta barnaamijka caymiska caafimaadka bulshada iyo ka faa'iideysiga adeegyada caafimaadka ee bulshada faafahinta warkaniyo wariye Asma Maxamuud mudane xarbi buux oo ah ku-xigeenka duqa ismaamulka Hadrabe ahna gudoomiyaha guddiga caymiska caafimaadka bulshada ee xafiiska caafimaadka ismaamulka Hadrabe oo ka qayb galay madasha lagu abaalmarinayay shakhsiyaadka iyo xafiisyada door muhiim ah ka qaatay hirgelinta barnaamijka caymiska caafimaadka bulshada ayaa sheegay in tan iyo markii uu bilaabay barnaamijka caymiska caafimaadka bulshada in maamulka Hadrabe uu waday dadaalo kala duwan si bulshada looga faa'iideeyo barnaamijka caymiska caafimaadka duqu waxa kale uu tilmaamay in shaqada la bilaabay la sii xoojinayo si bulshada looga faa'iideeyo adeegyada caafimaadka madaxa xafiiska caafimaadka ee Hadrabe Marwo Lamlam Basabe ayaa sheegtay in adeega caymiska caafimaadka ismaamulkeen uu kor u kacay 45% halka uu sanadkii hore ka ahaa 56%. kobaca waxqabadkan ayaa ku yimid kaalinta ay ka qaateen madaxda shaqaalaha iyo dadka ay khusayso madaxa ayaa intaasi ku dartay intan iyo markii uu maamulka hirgeliyay caymiska caafimaadka waxaa kor u dhacay tirada caymiska xarumaha caafimaadka waxaa lagu soo bandhigay warbixinta sanadka 2014 oo ku saabsan qiimeynta waxqabadka adeega caymiska caafimaadka bulshada sidoo kale waxaa abaalmarin la siiyay shakhsiyaadkii hay'adaha gaar iyo xafiisyada dawladda ee ka caawiyay xubnaha bulshada in ay xubin ka noqdaan caymiska caafimaadka iyagoo ka bixinaya kharashaadka xubinnimo 20 ilaa 50 kun oo bir dadka tabaalaysan abaalmarinta la siiyay waxaa kamid ah shahaado sharaf iyo kombiyuutarro mas'uuliyiinta ismaamulka Hadrabe oo horkacayo ku-xigeenka xafiiska maareynta dhirta mudane Maxamed Cabdilaahi ayaa deeq raashin gaarsiiyay barakacayaasha ka soo barakacay galbeedka gobolka City faafahinta warkaniyo wariye Ciise Khayre qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ismaamulka Hadrabe oo hogaaminaya ku-xigeenka madaxa xafiiska horumarinta iyo maareynta dhulka ismaamulka Hadrabe mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed ku-xigeenka xafiiska dakhliga ismaamulka Hadrabe mudane Mustafa Musa iyo mudane Sharmaake Maxamuud Xasan oo ah madaxa xafiiska qorsheynta iyo dabagalka xafiiska barwaaqo allaantiisa ismaamulka Hadrabe ayaa gaarsiiyay deeq raashin iyo dhar iskugu jirta oo laga soo ururiyay shacabka magaalada Hadrabe barakacayaasha ka soo barakacay galbeedka gobolka City ee ku sugan degmadaasi Afdam waxaana ka gudoomay deeqdani maamulka degmada Afdam iyadoo ugu mahad celiyay waxaana gudoomay deeqdani maamulka degmada Afdam iyagoo ugu mahad celiyay ismaamulka Hadrabe iyo shacabka Hadrabe deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen walaalahooda barakacayaasha iyada oo ku soo aaday deeqdani waqti aad baahi badan loo qabay deeqdani ayaa loogu talagalay shacabka ka soo barakacay galbeedka gobolka City ee ku sugan Afdam waxaana ka faa'iideystay 330 qoys deeqdu waxay ka koobnayd 150 kintaal oo sokor ah 100 kintaal oo galley ah iyo waliba 23 bandadood oo dhar ah ugu dambeyn hogaaminta gaarsiiyay deeqdani walaalahooda ku dhibaataysan galbeedka gobolka City ayaa sheegay inayna ahayn markii ugu horeysay ay gaarsiiyeen deeq noocan oo kale ah galbeedka City waxayna sheegeen inay sii xoojin doonaan gargaarka ay u fidinayaan walaalahooda dhibaataysan tartanka orodka marathonka caalamka oo ka socda dalka Mareykanka ayaa dhalinyarada matalaysa dalka Itoobiya ay guulo hor leh ka soo hooyeen faafahinta warkaniyo wariye Ayub Ibrahim orodka caanka ee ka socda dalkaasi Mareykanka ayaa ka qaybgalayaasha dalkeena Itoobiya matalayay ayaa wacdaro ka dhigay waxa kaalinta koowaad ee marathonka galay orodyaanka daayirka ee dalkeena Itoobiya matalay Tamraad Tolla waxa la gudoonsiiyay bilada dahabka isagoo rikoor ahaan ku xidhay 2 saacadood 5 minute iyo 35 ilbiriqsi waxa kaloo kaalinta labaad galay orodyaanka dalkeena ka socda Mosnad Garamo waxana la gudoonsiiyay bilada qalinka waxa kaalinta saddexaad soo galay orodyaanka Soomaaliga ee uu orda dalkaasi Belgiumka oo ku guuleystay bilada naxaasta orodkan oo toddobaadkan lagu qabtay dalkaasi Mareykanka ayay haadan wacdaro ay ka dhigayaan oryaanada ka qayb galay ee dalkeena Itoobiya matalaya dooyinka u dambeysay ayay ahayd xilli ay qasbadeen dhammaan shashadaha caalamka
waa hagaag daawadayaal waxaan guud ahaanba intaa kusoo gabagabaynaynaa warbixii dalka iyo dibadaba naga soo gaaray ee sida tooska idinkaga imanayay telefishinka caalamiga ee ismaamulka Dirdhabe laantiisa afka Soomaaliga warkan waxay idin la socodsiinaysay anigoo Saynab Axmed mar kale intaynu hawada ku kulmi doono waxaan ku sii dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh